بسم الله الرحمن الرحيم waxaan nahay aniga oo maxamed Usmaan ah iyo abukaata xalanay iyo abukaata warsame waxaan nahay qareenadii difaacay wariye Khadar oo ka tirsan TV-ga Himilo Somali TV maanta iyo shalawa waxaa socotay horgeyntii maxkamadda gobolka Banaadir loo sameeyay la tuhunsanaha Khadar ilaahi mahadi maanta ayaa la soo gabagabeeyay horgeyntii maxkamaduna waxay go'aamisay in xurriyadiisa dib loogu celiyo Khadar laguna waayay eedeemihii ay u soo jeediyeen booliiska gaar ahaan sarkaalkii baaraha maadaama annaga aan nahay qareenadiisii si waafaqsan qodobka 15 habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan marka hore ku faraxsanahay in ninkii aan qareenku ahayn wariye Khadar inuu xurriyadiisa dib u helo waxa kale oo rabnaa inaan baarakayno ama hambaliyayno ama ammaano garsoorka Soomaaliya gaar ahaan maxkamadda gobolka Banaadir sida loo dabaqay loo hirgeliyay sareynta sharcigu haddii qof walba uu ka sareeyo lana dabaqo waxay leedahay raaxada noocan bay leedahay farxadda noocan bay leedahay la qof kasto waa la tuhumi karaa laakiin waa in si huwanti ah ama si dhab ah u heli karo cadaalad waa tan maanta ay joogno marka si waafaqsan qodobka 39aad habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed si ay qareenadu hore u sheegeen garsooruhu horgeynta maadaama uu shalay dhageystay wuxuu tilmaamay wuxuu yiri cadeemaha aad shalay la hor keenay garsooruhu waa ku qanci waayay wuxuuna baaraha la amray cadeemo dheeraad ah inuu la yimaado berri oo aan dib u dhac la'aan sidaas darteed ballantii shalay ayaa maanta dib lisku soo laabtay baaruhu waa maxkamaddu waa horkeeni waayay waana ku qanci waayay cadeemo cusub ama eedeysanuhu la tuhunsanuhu inuu yahay midka galay maxalliga faldambiyeedkaas qodobadii shalay la soo jeediyo dhan iyo wariyuhu falka ama waxa fiidiyoyaasha loo soo bandhigay maxkamaddu waa lisqabadsiin waayay sidaas darteed maxkamaddu waxay go'aan qaadatay in wariye Khadar bari yahay waana ku faraxsanahay waana hambalyeynayna go'aankaasina waa go'aan sharci waa sareynta sharciga ayaa sidaa tilmaamayso cadaaladda ayaa sidaa tilmaamayso raaxadaas ay leedahay marka sharci la dabaqo marka maadaama aan qareenadiisa nahay aad baan ugu faraxsanahay in horgeyntii go'aanka noocaas uu ka soo baxo arrintaasina waxay muujinaysaa in sharcigu uu sareeyo kalsooni lagu qabo hay'adaha garsoorka maadaama garsoorka Soomaaliya oo horokac sameeyay annagu insha Allah ta'ala waxaan ku dadaali doonaa maal walba cid kasto la eedeeyo inaan ka difaacno eedaas sababta waa maxay qof kasto wuxuu xaq u leeyahay eed loo jeediyay eedaas inuu iska difaaco maadaama ay wariyaasha Soomaaliyeedna waxaa jiro xeer gaar ah oo xeerka saxaafadda la yiraahdo sida xeerka ciqaabtu tilmaamayo haddii xeer gaar ah loo sameeyo xeerkaas gaarka ayaa mudnaanta leh wariyuhu waa xirfad leh xeerkaas lagu dhaqaa xeerkaas labada qodob uu keenane ma aha laba qodob oo lagu dabaqi karo ama uu faldambiyeed ka dhalanayo marka wuxuu ahaa wariye shaqadiisa gudanayo waxa kale oo rabaa inay dardaarankii ay maxkamaddu bixisane inay wariyaasha fuliyaan aad baan ugu faraxsanahay wariyaasha Soomaaliyeed oo dhan baan hambalyeynaya inta nala joogta hambalyeynaya waxa si gaar u hambalyeynaya TV-gii uu ka tirsanaa wariyaha Himilo Somali TV iyo wariyaashii saaxiibadiisa ahaa waxa kale oo rabaa wariyaasha Soomaaliyeed halka jooga inay ku hambalyeeyo mihnadlayaal sida isu duuban oo hal qof markii la xiro inta ay ka soo qayb galayso ma jiraan sida hadda isu duubantiin sida iyo si ka badan sameeya insha Allah ta'ala shaqadina guta dhacdooyin kasta ee wadanka ka dhacayna dadka Soomaaliyeed gaarsiya adankoo dabaqaayo sharciga ilaalinayo qofna ugu baqina oo kaliya waxa sameeysan sharci waxaad ilaalinaysaa sharciga noqoto. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.